adduunyada jirta masiibada ugu weyn waa dhimashada bal wax ka weyn shay masiibo way jirta adduunyada masaa'ibtu way badan tahay abaartu waa masiibo bugtaantu waa masiibo ilmahaagi oo ka dhintay waa masiibo islaantu oo ka xanuunsata waa masiibo ganacsiga tijaaradii oo ka baabada waa masiibo anta ardayga jaamacadaha dhiganay hadduu imtixaanka waayo masiibo u arkaa laakiin masaa'ibta adduunyada inagu helaysa masiibada ugu weyn waxa weeyaan waa geeri weeyaan waa adduunka markay noqoto laakiin aakhira markii la joogo masaa'ibta aakhirada jirta masiibada ugu yar waxay noqon doontaa dhimashada ahla naarka wal iyad billah markay naarta ay galaan quraanka ilaahay noogu sheegay wanaadu ya maliku liyaqda alayna rabbuk qala innakum makithun afarta sanadood ayay ahla naarku naarta ka dhex dhawaaqayaan ay leeyihiin ya malik wa malaga furaha naaraha hayay ku leeyihiin rabbiga waxaad noo weydiisaa inuu nafta naga jaro bas haska dhimanaba maxay dhimasho u tamaninayaan bal sheeg dhibaatada ku haysata ee kale ayaa ka weyn dhimashada marka adduunyada markii la joogo masaa'ibtan adduunyada maan dadku ay masiibo moodayaan ta ugu weyn waa dhimashada weeyaan aakhira markii la tagana masaa'ibta aakhira masiibada ugu yar waxay noqon doontaa waa dhimashada weeyaan saadarteed adduunyadu way nagu weynaan agteena waxa la rabaa in nala weynaato diinta islaamka muslim aakhiradu waa in nagu weynaato wala dhimanaya dhimashada waxa ka dambeeya kula weynaadaan qabri baa ku sugaya qiyaama ku sugaya janniyo naar baa dambaysa ilaahay baa lagu hor joojin doonaa noloshaadii adduunyada 100 sano lagu siiyay 60 sano adduunyada lagu deeqay 50 sano adduunyada lagu siiyay waxaad ku soo qabatay baa lagu weydiin doonaa daqiiqad baa lagu weydiin doonaa Ata as-Sulaymi rahimahullah ayaa nin taabici abu haayo aad u murug badan salafu salih waxa lagu yiri ya sheekh murugtaadani aad bay u murug waad murug badan tahay dadka maxaad dheer tahay baa lagu yiri waa nin kale 30 sano isagoo qoslayna lama arag 30 sanana samada ma eegin baa la yiri dhulka muslaaw eega u soconayay ninka meel u cadahay meel ka madow dadkaasi aakhirada ku weyneediyaka markaas uu ku yiri al-maut fi 'unuqi wal qiyamatu mawqifi wal maut fi 'unuqi wal qabru bayti والقيامة موقفي وعلى الصراط طريقي ولا أدري وربي لا أدري ما يصنع بي وربي لا أدري ما يصنع بي وحيدي محان نمرغونين محان لمرغونين بويدي غيريدي با قورتا يسودان قبرغنا واقل كيغي قيامهنا واللي جوجين دونا أفرتن كن أو سنة ابن عباس وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة أفرتن كن أو سنة ابن عباس ayaa la joogi doonaa banka qiyaame 10,000 oo sanad xisaabta ku dhamaani doonta bal saacad halka joogso maalin ma joogi karna meel 40,000 oo sano ayaa sida loo taagnaa buri ibn Abbas oo mufassirka quraanka wax ka hore wax ciidada ka wax kuleelka ka hareynaya ma jiro meel la fariisanaya ma leh meel biyo laga cabaya ma leh قال لها سنة يا ملح يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ولما ومال بين هيد ومال هبل لما شيء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم يعض الظالم على يديه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ذلك يوم التغابن قرآن قال له شيء ويوم ومالين كليا حبين ملا مالين تاس ومالين تاس أي سوق يسبولي جد كسرنا وطريقا ظل مرايي ربي يمرك اللي هرجو جين وحكى له كل ما قال نبولي